السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaan yahay zero xaraba sinaan xarabahan iyo muruga haweenka Soomaaliya arag yani hadda dadka haweenka inay daawadaan fiidiyoda jecel kuligood aragtay fiidiyoga trendinga aha haweenkaas. This is a Emmanuel, do not do it. Emmanuel, don't do it. fiidiyogaas haweenkaas dagaal u bid'aadanka la galay ay jira. haweenkan yani waxa weeyaan nooc qoreeda kamid ah laakiin waxa loo yaqaan magaca imo يعني dagaalka bid'aadanka la gashay iyadii ba guuleysatay hadana iyadii xawayaan yani si guuleysatay aan ku sheego dagaalka 1932 ayaa wadanka xoolalayaasha yani wadanka Australia xoolun bulaaya ma garanay wax ka siiyay ayaa wuxuu go'aan sida wasiirkiisa difaaca ayaa wuxuu amar soo dejiyay in dagaal lagu qaado oo lagu maado dhamaan imooyinka oo dhan dagaalka waxa hogaaminayay ninka magaca adag halkaas magaciisa ku soo qoray dagaalkaas wuxuu socday bil iyo 8 ishu socday dagaalkaas hase yeeshee dhameystay ويقول درست عسكرتي إيما دي باني كوليستي طبعا وحي كوليستي معها إني ديو بلادك اللي أسي وحميان إني أوذكر ويني دي وانا حميان كان وحي حويان لقيا غانا مالحاضي ينو فذودي هاي أما قلقالي marka wuxuu guuleystay xawiyaan dagaalkii markii la galay yani xabadiisa lagu riday intaas oo askar yani imooyinka hareereeyeen sidii ay geeri ku sameeyeen bade ay imooyinkii isku dhinac may ordin ee in yar ba dhowr xabbo kala dhinac bay u orday kadibna waxa ciidanka ku adkaaday inay gaadhaan si ay u xasuuqaan kadib waxay ka dileen kun ilaa markii dambe la yiri dhaawaceedu 2500 oo dhaawac haayo kale markii dambe dhinteen hase yeeshee kale waxay ku warheleen inaan xabadu hore u dilay ayuu kan dhameystay dagaalka إيماذا يقول لي ستي أستراليا عيد ممكن يدينا وكتشوا حاجة من تهاي أستراليا دعالي كتشوا متى